الرحمن الرحيم ولا لو maaha arintu gudiga doorashooyinka kalsoonida doorashooyinka oo khalkhal gashay ayaa keenaya isqabsigan haddaan dib idin xasuusiyo Soomaaliland si ay ugu naalooto nabadgelyo iyo dimuqraadiyad iyo xuquuqda bini'aadamka iyo wax walbaba waxay sameysatay dastuur ku saleysan dalku inuu yeesho hay'ado isdheelitira kala madax banaan is-ilaaliya check and balance institutions kuwaas oo kala ah baarlamaanka oo laba qaybood guurtida iyo golaha wakiilada iyo fulinta iyo garsoorka mid walba waxa loo qoray qaabka ay u shaqeynayso maantana si darata la waxa way guurtidu 30 sano muddo ku dhow ayay fadhidaa waxaana xilkeeda loo igmaday 5 sano kaliya inay fadhido golihii wakiiladu wuxuu fadhiyaa 15 sano waxaana loo igmaday 5 sano madaxweynayaashii soo marmaray iyo ka hadda sidii wax u socdaanba muddo kordhin iyadoon dalka wax mushkilo weyn ka horteeda ayuu ku ictiraafay in madaxweyne Muuse Biixi yahay madaxweynahoodu yahay una hoggaansamayaan maaragtay sharfayaan karaamadiisa iyo maaragtay lana shaqeynayaan meel ku yiraahdeen ma jiro maaragtay daanu maanogi madaxweynaha laakiin madaxweynaha ku tuhmayaan ku leeyahay dee taageerayaashiisa ku leeyahay kuma oran dhibaatada weyn ee meesha taala waxa weeye hay'adihii kala madax banaanaan lahaa ee dalkan kala habeyn lahaa ayaa dhaqaalihii iyo maamulkii wuxuu gacanta u galay fulinta hogaamiyihii gacanta u galay madaxweynihii maaha Muuse Biixi arintan waa in muddo wax soo socday weeye maamuladii horeba ay ku wada jireen marka waxay gacantii u fududeysay iyadoo daariga corruption ka baan isticmaalay waxay u fududeysay inay golihii guurtida gacanta ku dhigaan inay golihii wakiilada gacanta ku dhigaan inay garsoorkii gacanta ku dhigaan inay commissionkii gacanta ku dhigaan inay ciidamadii iyo maaragtay dadkii fulinayay law enforcementga fulinayay iyakiina gacanta lagu hayo waxa weeyaashi iyo cidii hadashana xabsiga loo taxaabay marka awoodii qarankood dhan baa waxay ku soo ururtay hal shakhsi laakiin shalay waxa la isku hayay tiradii xubnaha la isku hayay maantana waxa la isku hayaa xubinta nooceeda la isku hayaa مثل markii dadkii kale ee ummadda ay iyaku ay soo bixi lahaayeen na waxa la yiri wax urur lama furi karo wax tartan shakhsi madax banaan lama sameyn karo halabuurkii dhan waa xanimay marka waxa xanibayana waxa weeye danta shakhsiga ah ee laga hormariyay tii qaranka iyo tii ummadda waxa kale oo meesha ku jira waxa weeye halabuurka xanibaya golayaashii baarlamaanka oo iyakii maxaan dhahaa garaadkooda siyaasadeed iyo ka dacadnimo ee qarankooda iyo ummadii soo dooratay la dhaliili karo waxa weeyaan mushaharkay qaataan ba aad u liita dhaqaalahooda aad u liita si fudud ba gacanta loogu maartay loogu dhigi karaa hay'ad ka madax banaan ma aha hay'adda fulinta maantayto muranka waxa keenaya waa arrimaha maxaa loo diidayaa 7-9 looga dhigay ay u doodiyeen waayo waxa weey golayaashan guurtida oo laba xubnood leh hadday madax banaanaan lahaayeen maartay kalsoonidu way jiri lahayd guurtida waxay noqotay fulinta waad arkaysaa maalintii dhawaato durduradii iyo xoogii lagu marinayay markana si darada Soomaaliland taala waxa weeye hay'adihii qarankan u taagnaan lahaa ee mid walba iskaalin lahaa ayaa wada sii burburaya maalin